Assalaamu calaykum waraxmatullah. Barnaamijyadeennii aan kaga hadlaynay cuntooyinka u wanaagsan labada qof marka ay isku galmoonayaan cuntooyinka u wanaagsan. Waa casharkii labaad. Waxaan ka soo hadalnay 20 cunto oo u wanaagsan qofka marka uu sameynayo ama labada qof ee lamaanihi isku tagayaan 20 cunto oo wanaagsan. 20ka cunto waxaan ka soo qaadanay 2 ka mid ah kuwaas oo si dabiici ah looga helo dhulkeena. Cuntadan koowaad ee kaga hadalnayno barnaamijkeena labada cuntada koowaad waxaa loo yaqaanaa peppers waxaa loo yaqaanaa qajiga cas ayaa loo yaqaanaa. Qajiga cas waa cuntada koowaad. Faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan waxaa ku jira omega 3 waxa loo yaqaano. Sidoo kale wuxuu u wanaagsan yahay neerfaha, qofka neerfihiisa ayuu u wanaagsan yahay. Sidoo kale wuxuu u wanaagsan yahay in uu qofku rabitaan galmo la yimaado ayuu u wanaagsan yahay oo erectile response loo yaqaanaa. Weliba dumarka, ragga weliba waxaa kaga sii wanaagsan oo kaga sii response badan yahay ama jawaab bixinta uu kaga badan yahay dumarka. Waxa weeyaan waa qajiga cas. Si dabiiciyana waa loo helaa oo waana iska jaban yahay. Dhulkeenana waa laga helaa. Waa cuntadeena koowaad, waa cuntada ugu wanaagsan. 20kii cunto ka soo hadalnay ee ku jirtay cuntadani. Omega 3 ayaa ku jira waanu sheegnay. Neerfahana wuu wanaagsan yahay. Sidoo kale wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka qofka markay sameynayaan laba qof markay sameynayaan galmo. Sidoo kale wuxuu sameynayaa kor u qaadaa rabitaanka qofka galmada siiba dumarka. Cuntada labaad waxaan ka hadli doonaa 13 qodob oo cuntada labaad oo ah waxa loo yaqaano sanjabiilka ay ku wanaagsan tahay. 13 baan ka hadli doonaa muhiima. Qaar ka badan uu leeyahay laakiin 13kaasi waa 13ka ugu wanaagsan ama 13 qodob ee ugu waaweyn. Qodobka koowaad wuxuu kordhiyaa awoodda ragga oo loo yaqaano libido. Qodobka labaad wuxuu u wanaagsan yahay ragga caafimaadkooda ayuu u wanaagsan yahay. Qodobka saddexaad wuxuu kor u qaadaa xagga fertility-ga ama egg iyo sperm inay isla falgalaan oo ay sameeyaan waxa loo yaqaano zygote ayuu aad uga qayb qaataa. Qodobka afraad wuxuu hoos u dhigaa blood pressure-ka ama cadaadiska dhiigga uu ku marayo xididada ayuu hoos u dhigaa. Wuxuuna u wanaagsan yahay wadnaha inaad isticmaasho ood shiidato ood sharaab ku darsato ka hor inta aanad sexual ama galmo aanad sameynin. Muhiim ayay ku tahay. Waa qodobka 5aad. Qodobka 6aad wuxuu u wanaagsan yahay ragga xubinkiisa taranka uu u sameeyo inuu jiro waqti badan oo sii jiro. Sidoo kale aanu daalin oo noqdo mid adag oo waqti badan sii jira ayuu ka qayb qaataa. Qodobka 7aad wuxuu soo daayaa oo sanjabiilkani cariyaa waxyaabaha loo yaqaano testosterone-ka. Testosterone-ku wuxuu ka qayb qaataa rabitaanka qofka sameynta galmadiisa ayuu ka qayb qaataa testosterone-ku kaana u cariyaa. Qodobka 8aad wuxuu kor u qaadaa socodsiinta spermta ragga ama xanta ragga inay noqoto mid awood ku socota oo si ay fertility u dhaco mid awood ku socota ayuu ka dhigaa oo motility-geeda ama socodkeeda ayuu kordhiyaa. Waa qodobka 8aad. Qodobka 9aad wuxuu daaweeyaa daalka ama waxa loo yaqaano fatigue oo qofka haddii galmo sameeyo waxa laga yaabaa inuu fatigue noqdo. Wuxuu ka hortagaa qofka markuu sexual sameeyo ama galmo sameeyo inuu fatigue noqdo ayuu ka hortagaa. Qodobka 9aad. Qodobka 10aad weight loss buu sameynayaa ama haddii aad u cayilsan tahay inaad isticmaasho sanjabiisha aad bay kugu fiican tahay oo wuxuu la dagaalamaa waxyaabaha faatka loo yaqaano ama baroorta qofku marka uu naaxsan yahay. Waa qodobka 10aad. Qodobka 11aad waxaa laga isticmaalaa horta sanjabiilkan waddanka Hindiya
isagoo oo lagu darayo egga iyo malabka isagoo lagu darayo ayaa loo isticmaalaa. Qodobka 12aad wuxuu u wanaagsan yahay labada qof ee sameynaya galmo caafimaadkooda oo faa'iido badan ayuu u leeyahay. waayahay qodobka 13aad wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha loo yaqaano low chloride oo u wanaagsan labada qof ee sameynaya galmada, oo waxa ku jira geedkan potassium iyo magnesium iyo vitamin Z ku jirta. 13ka qodob ee aan ka soo hadalnay ayuu ku wanaagsan yahay waxa loo yaqaano sanjabiilka ama geedka loo yaqaano sanjabiilka. inaad isticmaasho galmada ka hor iyo kadib aad bay kugu wanaagsan tahay. 13ka qodob ee ka soo hadalnay iyo qaar badan oo kale oo aan soo koobi karin ayuu ku wanaagsan yahay. marka inaad shiidato oo sharaab ku darsato aad bay muhiim kugu tahay. maanta waxaan ka hadalnay labada cunto, ka hore oo ahaa qajiga iyo ka dambe oo ahaa sanjabiisha, iyo waxay ku wanaagsan yihiin baan ka soo hadalnay. aad baad u mahadsantihiin daawadayaal. subscribe-ka iyo like-ka nagu dhiirigeliya si aan u noqono dad ka sii kordhiya oo naga heshaan faa'iido badan iyo cuntooyin aad u wanaagsan. mahadsanidin daawadahayaga qaaliga. asxaabtaan jecelnahay, maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto, like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan.